haddaynu intaa kaga nimaadno hordhici amba introductionkii caawa oo ah habeenkeena saddexaad aynu ku faahfaahinayno suuqeenan kan ah koobaad waxaynu ka bilaabeynaa candlestick muxuu yahay qaacidadiisa amba qeexitaankiisa haddaynu qeexno waa tusiyaha ku tusinaya suuq mabayba mise waa sel waa tusiyaha ku tusinaya suuq mabayba mise waa sel waxaa laga yaabaa markaad bahalkii waxaa la yidhahdaa qaybta practicalkiinu iyadoo live ugu tegi doonaa laakiin iminka waxaan usoo qaatay keliyata markaad saa u furto shaashadaada computerka ah ee suuqa aad sidaa usoo gasho waxaad arkaysaa oo indhahaagu markaaba qabanayaan candles fursada haddii kor u socdaa inuu suuqaasi bay yahay amba abtiran yahay haddii ay indhahaagu qabtaan suuq hoos saa usoo socda oo casaanka guduudkaana waxay markaaba maskaxdaada soo gashay inuu suuqaasi sel yahay oo bahalkii waxaa la yidhahdaa suuqaasi sel aadayo amba down train aadayo marka imaa waxay qabanaysaa saddex nooc suuq u qaybsanaa imaa correctionkaasay qabanaysaa saddexdaa midun bay indhaha qabanaya markaad computerkaaga furto aroortii kala furto ad rabto inaad shaqadaada bilowdo shaqadaada maalinlaha inaad bilowdo markaad rabto saddexda midun bay qabanayaan haddaba muhiimaddu waxay tahay candleka haddaynu faahfaahino candleku haguu ka furmaa wuxuu ka furmaa sida caadiga haddaynu eegno sida caadiga bartaasu ka furmaa bartaa markuu ka furmo inkoo kale waxa laga yaabaa bartaa intuu ka furmay bartaa joogo ka furmay candlekaas hoos loo soo celiyo oo selleriska xagga ay keeneen markii qoladii selleriskii laga awood batay la celiyey ditaan bartaa lagu xiray bartaa in lagu xiray oo raggii buyerska ka awood batay raggii selleriskii ay cadeynaysaa oo bartaa lagu xiray haddaba candlekaas muxuu inoo sharaxaya candlekaas wuxuu u taagay wixii buy oo dhan ah ayuu xabaarsan yahay micnahooga haddii noqoto xagga wiigka ushaa dheer haddii noqoto xagga uu ka furmayo suuqa candleka bayga ah haddii noqoto xagga muxuu ahaa ku xirmayo candleka bayga ah intaasoo dhan waxaa xambaarsan candleka bayga waxaan ku dul qoray waa micnaha candle bay ah wuxuu xambaarsan yahay candleka bayga isagoo dhammaystiran cashiradiisa inta nooc ugu qalbisayo candleka waynu baranaynaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad bahalkii candleka aad fahanto muhiimadiisa candleka markuu bartaasu ka furmaa waxaan jeedaa wiiga dheer wiig waa loo yaqaanaa bartaasu ka furmaa bartaasu ku xidhmaa waa candleka bayga ah ayaa bartaa ka furma bartaana ku xidhmaa imaa candleka hadduu sal yahay kii hore bartuu ku xidhmay ayuu kasoo furmaa deetana wuxuu ku xidhmaa hoostiisa hoose amba xaggiisa hoose oo kor ayuu ka furmaa hoos buu ka xidhmaa xaguu kani hoos ka furmayo oo kor ku xidhmaayo kani bilcags sal iyo bay waayo kana kor buu socdaa kana hoos buu socdaa marka kana hoos buu ka furmaa kaasina kor buu ka furmaa kani kor buu ka xidhmaa kana hoos ayuu ka xidhmaa marka candlestick waa tusiyaha ku tusinaya suuqu masalba mise bay waa tusiyaha ku tusinaya suuqu mabayba mise waa sal marka suuqani aynu ka shaqaysanay forex aska ah amba suuq kasta online ah wuxuu xambaarsan yahay saddexda micno waxa weeye inuu suuqaasi imaa bay yahay imaa inuu sel yahay imaa inuu ku jiro correction saddexda waxaanan hayn suuqani ma shaqeeyo inagu markaynu waxaynu baranaynaa goor buu bay ku jiraa goor buu sel ku jiraa waqti intaas baynu baranaynaa bahalka markaa muhiimadeena inaynu intaa barano suuqa dhanna intaas ayuu ka koobay mar uu bay ku jiro iyo mar uu sel ku jiro iyo mar uu ku jiro correction intaa keliyata ayuu ku jiraa suuqa dhanba haddaynu u nimaadno bahalkan loo yaqaan amba keena labaad oo loo yaqaan waxaa la yidhaahdaa time frameka waa shay kastoo waqti dhaqaaqa tusaale haddii aad intaad meel ka dhaqaaqdo meel kale aad dhaqaaqdo daqiiqadii aad dhaqaaqaysay iyo daqiiqadii aad ka dhaqaaqday meesha iyo daqiiqadii aad ku aaday meesha kale waqti bay ahayd waqtigaa haddii la kala jiro waxaa la ogaanaya totalka waqti aad socotay waqtiga ay kugu qaadatay inay soo socoto haddii mar labaad aad soo socoto inta in laga kugu qaadanaysa haddaad ku noqoto haddaad kusii socoto waxaa laga yaabaa inuu waqtiga isla intii inu hado candleku haddaba
waqtigaad adu u go'aamiso ayuu soconaa candle-ku waqtigaad u go'aamiso haduu soconaa haddaad 1 minute ka dhigto 1 minute buu soconaa 1 minute haddaad ka dhigto 1 minute buu soconaa 1 minute haddaad ka dhigto 1 minute kaasuu soconaya haddaad kaa 5 minute ka dhigto 5 minute kaasuu soconaa haddaad 5 minute ka dhigto 5 minute kaasuu soconaa kaasina 5 minute ima waxdaad ka dhigto 1 week 1 week buu soconaa wax kala socon maayo marka haddii aad kaa ka dhigto 1 month kaa ka sareeyana 1 month buu soconayaa ogtahay inaad saa u fahamsanaato weeyaan inaad saa u fahamsanaato oo bahalkii ka dhalka intaad kalba ka dhigto ayuu soconayaa yararaadahada waxaa la yidhahdaa marka intuu soconaya intaas ah marka haddaba waxaa la yidhahdaa time frame muxuu yahay time frame-ku waa tusiyaha ku tusinaya waqtiga cayiman ee uu ka dhalkan socday hadday tahay 1 hour 4 hour 1 day 1 week iyo 1 month candle-ku intaan buu socdaa haddaad bil ka dhigto candle-ku inuu bil kuu socdo bil inuu kuu socdo haddaad ka dhigto kaasi bil buu soconaa kaasina bil buu soconaa haddaad kaa 5 minute ka dhigto kaasina 5 minute buu soconaa haddaad kan 1 minute ka dhigto kanna 1 minute buu soconaa labaduba kolba intaad u gaabiso ay soconayaan marka waxaa la yidhaha time frame-ku waa tusiyaha ku tusinaya suuqani tusiyaha ku tusinaya waqtiga cayiman ee candle-ku socdo adiga hadduuna timekaasi jirin maad ogaateen candle-kan goormuu waqtiguu furmaa iyo waqtiguu xidhmaa laakiin imika wax lagu siiyey waqtiguu furmaayey waxaanad ku xisaabtami kartaa ood arki karaysaa waqtiguu xidhmaayey haddii 5 minute aad ku furto 5 minute buu ku xidhmaa haddii 15 minute isku furo 15 minute buu ku xidhmaa 1 hour haddii isku furana 1 hour 1 monthna 1 month okay marka muhiimadda waxay tahay time frame-ku waa waqtigu socdo candle-kani iskama socdo markuu furmaayo xagaa daqiiqad buu ku furmaa laga yaabaa inuu furmay kasoo qaad hal saac habeenimo inuu furmay oo 1 hour aad ka dhigto 1 hour baad ka dhigtay 1 hour inuu candle-kaas 1 hour socdo ayaad ka dhigtay dadkana barta wuxuu ku xirmay markay ahayd 2 saac habeenimo ayuu ku xirmay barta waayo hal saac habeenimo furmay 2 saac habeenimo xirmaya marka waa intaas weeyaan kaa ku xigaa wuxuu kaasay 2 saac habeenimo ku xirmo kaas wuxuu furmaa 2 saac habeenimo wuxuu xirmaa 3 saac habeenimo 3 saac habeenimo kaas furmaa wuxuu xirmaa 4 saac habeenimo saacad buu soconaya kaasi saacad kaasina saacad kalba saad ka dhigto ayuu soconaysaa marka time frame-ku waa tusiyaha ku tusinaya waqtiga cayiman ee uu socday candle-kaas waqtiga cayiman uu socday candle-kaasi marka time frame-kuna isaguna waa intaa haddaba suuqan buy iyo sell baad maqasheen seedka ogaanaysaa buy iyo sellkan laga sheekaynayo seedka ogaanaysaa buy iyo sellkan la sheegayo seedka ogaanaysaa waxaad ku ogaanaysaa suuqu bar kor ma u socdaa guduud ma yahay hoosta ma ka furmaa hoosta hadduu ka furmo uu kor hoose hadduu ka furmo xaggaa sare ku xidhmo waa buy hoosta hadduu ka furmo korka ku xidhmo waa buy hoosta hadduu ka furmo korka uu ku xidhmana waa buy ima candle-ku hadduu kor ka soo furmo hoos ka xidhmo waa sell hadduu kor ka furmo oo hoos ka xidhmo waa sell marka eeg suuqu ma buy maad iibsanaysaa mise waad iska iibinaysaa lacagtan suuqu u jihaysan yahay jihada buyda waxaa markaad furto suuqan jihadun baad ogaanaysaa buy iyo sell adun baa kala ogaanaya hadduu kor u socdana waa buy un baad oran hadduu hoos u socdana waxaad oran waa sell adigoo adeegsanaya waxaan aynu hore usoo sheegnay guduud haddaad kalarka ka dhigato kalarka aad kala dugto candle-ka xaguu ku furmo kalarka hadduu isku mid yahay laftigiisa ood kala gara weydo candle-ku xaguu ka furmaayo kor hadduu ka furmo hoos ka xidhmo suuqaas waa sell hadduu hoos ka furmana kor uu ka xidhmo suuqaas waa buy candle-ku waa intaa markaasaad kala bedelaysaa waqtigu socdo waad iga bedeli karaaya marka waa intaa haddaynu kaaga nimaadno qodobka hore qodobkiina labaad baynu u gudbaynaa oo ah bib muxuu yahay iyo lot size
bib muxuu yahay iyo lot size bib waa dhaqaaqa uu sameeyo suuqu markuu dhaqaaqa iyo dhaqaaqi qof waxaan dhaqaaqaya waa maxay waa kandhalka kandhalku waxaan sheegnay inuu waqti ku dhaqaaqo haddaba maxaa diiday kandhalka hadduu waqti ku dhaqaaqayo inuu fogaansho dhaqaaqo distance inuu dhaqaaqo inuu distance dhaqaaqo maxaa diidaya uu dhaqaaqaya distance fogaansho lagu xisaabtamana uu dhaqaaqaya haddaba bibis waa dhaqaaqa uu sameeyo qiimuhu markuu kor iyo hoos u socdo suuq markuu ba yahay amba stali uu yahay waa dhaqaaqa uu sameeyo ayaa loo yaqaanaa bibis ayaa loo yaqaanaa suuqa hadduu intuu kor ka furmo haddii uu suuq yahay mid kor u socda oo uu samaysto waxaa la yidhahdaa hoosta hoose intuu ka furmo xagga sare uu ku xidhmo haddana hoosta hoose ka samaysmo uu korka ka xidhmo suuqaas oo suuq abtirayna la hadal suuqaasi oo suuq aba waa bay waynu dhahaynaa imaa suuqa hadduu sali yahay uu hoosta xagga sare kasoo furmo uu hoos usoo socdo hoosta hoose ku xidhmo suuqaas waxaynu dhahaynaa waa sel waayo suuqaasi hoos usoo socdaa marka dhaqaaqa uu kasoo dhaqaaqay min xagga sare ilaa barta uu ku imid seed u xisaabinaysaa adu waxa laga yaaba inaad xagga kasoo gashay haddii aad mar xagga kasoo gashay challenge fiican weya haddii bar aad barta kasoo gashay oo barta aad kaga baxday intee in leegu kugu soo dhaqaaqay baalkase ilaa xagga intee in leegu ku dhaqaaqay marka maxaa la yidhahdaa intaasaad xisaabsanaysaa intaas ayaad xisaabsan inta maxaa loo yaqaan waa bib waa dhaqaaqa uu dhaqaaqo suuqu markuu qiimuhu kor iyo hoos u socdo qiimuhu markuu u socdo kor iyo hoos waxaan dhaqaaqaya waa kandhalka suuqa lagu sheegay amba suuq kale ma kandhaliska isku tegay ayaa waxay sameeyeen suuq micno buuxa maogtahay ayaa loo yaqaana kandhal waa halkii ka labaad lot size waa lacagta yar haddii imika kugu jirto kala kasoo qaad $100 bay kugu jirtaa $100 baad brokerka ku shubatay brokerka haddaad ku shubatay $100 waxaad rabtaa inaad ku gasho trilkaaga waxaad ku galaysaa 0.1 waxay u dhigantaa 10 centi ayay u dhigantaa ogtay marka 0.1 marka waa lacagta cayiman ee adigu go'aaminaysa lacagta adoo go'aaminaya adiga maanta haysta bahalkii $100 oo hurdeel fadhiistay oo raba inaad cunto lacag cunaysa qiimeega haddaad garanay ma cunaysid laakiin qiimeega haddaad garanayso cunaysaa haye waxaad rabtaa inaad cunto beger baan dadku la jecel yihiin amba pizza inaad cunto rabtaa muxuu ahaa xaggeena Soomaaliya $3 $4 $5 baa la siiyaa wax saas la siiyaa waxaad haysataa lacag $10 ku dhow amba $100 ku dhow $5 baad siisatay kana $100 baad haysataa waxaad ku galayso adaa garanaya suuqan intaad isticmaalsa adaa garanaya ogtahay marka lot size iyo bibis inta haddaan ku celiyo mar labaad lot size iyo bibis haddaan mar labaad ku celiyo aan iska masaxno waxaan lot size iyo bibis haddaan mar labaad ku celiyo bibis oo dhaqaaqa u dhaqaaqayn meel baa laga dhaqaaqa meel baa la aado meesha la aadayo distancega xaggaasaad kasoo dhaqaaqaysaa waana pointigaas hortaasaad imanaysaa oo ah 98ka labada pointi iyaad soo kala jaraysaa waxaad soo kala jarto minuska soo kala jarto ayaad ku dhufansanaysaa lacagtaadii marka kana waa lot size waa lacagta cayiman aad ku galaysaa haddii $100 kugu jirto waad ku galaysaa 0.1 baad ku galaysaa in waxaad ku galaysaa 0.05 centi ogtahay 50 centi aad ku galaysaa marka waa intaaba marka muhiimada waxay tahay seen xisaabsan faa'iidadeeda aba khasaarahaya haddaba wax faa'iiday intaanan gelin suuqan waxaan rabaa inaan ogaado faa'iidadeeda intay noqonayso sax ama intay khasaarahayga noqonayso haddaba khasaarihi faa'iida waxa lagu kala ogaadaa bibiska intaad suuqaasi dhaqaaqayo markaad ogaato dhaqaaqa uu sameynayo intuu dhaqaaqayo markaad ogaato
waxaad ku dhufanaysaa bibiska lacagtaadii ahayd lot size lot baad ku dhufanaysaa lot sizekaasaad ku dhufanaysaa okay lot size ayaad ku dhufanaysaa waxaa kuusoo baxaysa faa'iido amba khasaaro faa'iido imaa khasaaro ayaa kuusoo baxaysa faa'iido amba khasaaraha waxay ku keenaysaa inaad bibiskaaga lacagtaadaas dhaqaaqa uu sameeyey inaad ku dhufato lacagtaada dhaqaaqa uu sameeyey inaad ku dhufato lacagtaada maogtahay muhiimadda intaas markuu intaa daba dhaqaaqo waxaad ogaanaysaa imika kale kasoo qaad waxaad haysataa 20 bib baad haysataa wuxuu dhaqaaqay konton bib buu dhaqaaqay muxuu ahaa konton bib maxaan jeedaa 20 bib buu dhaqaaqay lacag waxaad dhigatay konton senti 0.5 markaad intaa ku dhufato maxaa soo baxaya wixii soo baxay ayaa ay noqonaysaa profitkaagu take profitkaaga waxaasuu noqonaya waxaas ayuu noqonaya take profitkaagu marka haddii aad ku gasho haddaad haysato 40 bib haddaad haysato ood ku gasho 0.1 aad ku gasho oo 0.1 centi ood ku gasho halkaas centi muxuu ku noqonaya 2 centi ood ku gashan ka wadaa 2 centi muxuu ku noqonaya saasuu ku noqonaya marka muhiimadda dhan ba waxay tahay bibiska iyo lot size-ka lagu dhufto ayaad waxaad ka ogaanaysaa faa'iidadaada ayaad ka ogaanaysaa faa'iidadaada iyo khasaarahaaga inteed faa'iidaysa adoona suuqa gelin inteed khasaaraysaa maanta ridwaanow waxaba waad meel baad dhiganaysaa maaha wax kasoo dhacdhacayo la odhanayo alla maanta intaasaan dhigtay intaasa iga khasaartay no ma jirto waxaasi ma jirto waxaa wax la idhaahdo laakiin faa'iidadaada adiga xisaabsanay faa'iida intee leeg wad rabtaa lot size intee leeg wad rabtaa muxuu ahaa bibis intee leeg wad rabtaa inaad maanta ku dhaqaaqdo intaasoo dhan markaad soo xisaabsato cid confirmation buuxa hesho ayaad suuqaas ku tuuraysaa haddaynu intaa kaga baxno kii saddexaad taxneena asaasiyaadka muxuu ahaa 3 qodob baynu kaga hadlaynaa isagii waa sii socda take profit entry point iyo stop loss haddaynu u nimaadno take profit waa meesha aad rabtid suuqa inaad ka gashid faa'iido aad ka qabatid meeshaad rabto inaad ka gashid meesha aad rabtid inaad ka gashid waa meeshii aad ka gashay aad rabtid inaad uga baxday adigii faa'iidada ay kula socoto ayaa raba inaad suuqa ka baxdo waxaad ka baxaysaa adigoo faa'iidahaya bixi weyn waxaad baxaysaa adigoo faa'iidahaya take profitka haday noqoto kasoo qaad suuqa xaggaasaad kasoo gashay kanal baa si fiican buu furmay confirmation buuxaad ku heshay sala bay waan ujeedaa bay ah kanalka yaro guduuda laakiin bay ah kanalka green inooga dhig bartaasaad ka furatay saasuu socday laga barta inaad kasoo gasha laga yaabo oo ha bartaasi entry point-kaaga inuu barta u ahaa laga yaaba bartaas waxa laga yaaba inay take profitkaaga ah ogtahay barta aad ka gashay barta ah ayaa ah kanalkaas intuu socday waa intaad faa'iido ka helaysa saddexdaa kan dhaban kuu dhaqaaqo enough baa tiri igu filan aniga dad ku gashay lacag ku dhow $1 oo kuu dhaqaaqay isaguna $50 baad qabatay $50 ayaad qabatay waad ka baxaysaa suuqa markaa waad kaga baxaysaa imaa hadduu 100 bib dhaqaaqay 100 bib baad qabanaysaa 100 bib ayaad qabanaysaa markaa take profit waa faa'iidadaada xaggaasaad kasoo galaysaa suuqa intaas kor kuula baxaya buy faa'iido barta markuu gaadhoonaysa igu filan waad ka baxaysaa oo meesha markaad joogto faa'iidadaada aad ku joojinaysid ee aad kala baxaysid entry point-ka waa meesha aad ka gelisay suuqa entry point-ka waa meesha cayiman aad ka gelisay suuqa barta suuqa xaggaa lagama galo xaggaasana lagama galo markuu sii dhamaanayo intaasoo dhan lagama galo laga galaa barta ka bilaabaya laga gala aaya waayo barta hadaad ka gasho ood barta ka gasho isku xagga maraya isku barta ka gasho ood xaggaas kale ka gasho entry point oo aad rabto inuu kor usii socdo oo hoos usoo laabto ka waran khasaare ay ku jirtaa ay ka dhigan tahay
marka waxaa la yidhaahdaa wasaas weyn. marka take profitkuna waa meesha aad faa'iidada kala baxaysid, entry pointkuna waa meesha aad kasoo galaysid. stop losskuna wuxuu yahay wuxuu yahay kasoo qaad inaad lacag maanta inaad lacag shaqaysato, kasoo qaad inaad rabto lacag inaad shaqayso. seed u shaqaynaysaa? waxaad u shaqaynaysaa bahalkii waxaa la yidhahdaa canal baad buy baad u galaysaa, buy ma garatay inta kadib suuqaas waa suuq abtrina weyaan waxaad rabtaa inuu suuqaasi abtrin uu kugu socdo. suuqa xaggaa mareed rabtaa inaad gasho, suuqa korku kugu socdo. haddaba intri muxuu ahay stop losskaaga xagee ka dhiganta? meelahaasoo kale ka dhiganta, xaggaasoo kale aad ka dhiganta, xaggaasoo kale ayaad ka dhiganaysaa. aada ma fogeynaysid. haddii uu suuqan isagoo bay ah usoo laabto idana taabto take profitkaaga isoo jeeda stop losskaaga. hadduu taabto stop losskaagana gaadho khasaaro ba-ay baad ku jiray kaga ka dhigan tahay. marka waa intaas wax badanba maaha. oo intaas aada soo cayantay min xagga inta biga u dhaqaaqe lagaga soo loogu dhufta lacagtaadi. saas waa sidaa hala sameeyo. oo ahaa take profitkana waa intaasun oo meeshaad faa'iidada kala baxaysid. waxaa kale entry pointka waa meesha cayiman aad rabtid inaad suuqa ka geshid. stopkuna waa meesha aad rabtid cayiman aad ogashay khasaaraha inaad kaga baxid. muhiimada dhan baaba intaasa. wuxuu ahaa aad baad umahadsantiin walaalahay qaaliga ah ee youtube-ka iyaga iyo dee meelaha channeladeeda nagala socda. marka waxaan idin rajeyneynaa xilli kasta oo idin tahay habeen wanaagsan. anaga habeen bay noo tahay, idinkana xilli kasta kale idin tahay. marka waxaan idinkaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.